kale waxaan ahay Xaawo Xasan Maxamed wasiirka caafimaadka waxaan aniguna mahad balaaran u jeedinayaa golaha baarlamaanka waxaan aaminsanahay hawsha hadda ay bilaabatay wax hadda dhamaaday ma lahan ilaahay marka hawsha weyn oo hortaagan la garab galo 2600 waxaan rajaynaynaa meeshii laga rabay Soomaaliya inay taagnaataan inaan geeyno insha Allah in isheenu ay ahaato oo ballan qaado in ay ahaato raas Kamboni la raas Casayr wasaaradda arrimaha gudaha inta alaalay inta mas'uuliyadeeda ka saaran ay soo gudato waxaan kala rabnaa inaan ballan qaadno in la dhameystiro maamulada iyo wanaagga socda hadda intii hore lagu sii daro si gooniyo waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada baarlamaanka oo majority weyn ku ansixiyay xukuumadda saaxiibadayna waxaan kula talinayaa maadaama wasiir duqoobay aan ahay muddo meeshaan joogay in isla berriba hawsha lagu dhaqaaqo waqti lama hayo 2016 waana soo haysaa darteed waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay deedooda iyo qeyr ha u sheegaano anagana waxaan nagala rabaa in hawshiina loo idmada aan ka soo dhalaalno dhamaadkii hore ee sanadkii aynu ka soo talaabnay ee 2014 khilaaf u dhaxeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu saameeyay shaqadii ay qabanaysay xukuumaddaas markaasi kadib baarlamaanku waxay codka kalsoonida kala laabteen xukuumaddii hore ee dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magacaabay ra'iisul wasaare Sharmaarke oo baarlamaanka Soomaaliya cod kalsooni leh ay ku ansixiyeen waxaana ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay xukuumad markii dambe ayuu kala baqday in xukuumaddaasi ay baarlamaanka codka kalsoonida u diidaan xukuumad kale ayuu soo magacaabay oo ka kooban 20 wasiir waxa uu dalbaday muddo 10 maalmood ah si xukuumaddaasi uu wax ka soo bedel ugu sameeyo maanta ayaana cod kalsooni leh ay ku ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyadoona xukuumaddan wixii hadda ka bilowda ay tahay mid ansax ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ka sugaysay shaqooyinkii loo wakiishay